mar walbo guurka la fududeeyo zinadaa yaraata mar kasta oo guurku adkaadana zinadaa fududaata limaada lianna labadan jinsi adiga ma kala celin kartid labadan jinsi haddii aan la kala celin karaynin dariiqii xalaashaa haddii uu adkaado dariiqi xaaraama isku raadsanaya saas daraaddeed baa waxaa laga maarmaana rag iyo dumarba in la fahmo waaqica la joogo iyo meesha la joogo iyo wadciga la joogo iyo xaaladda lagu jiro saas daraaddeed guurka in la fududeeyo guurka in la fududeeyo oo ama ha noqoto meherka oo nabigu sal lla lay slam wuxuu yihi dumar waxaa ugu khayr badan kuwa ugu meher fudud guur waxaa ugu khayr badan guurka ugu qarsheer ma aha innaga saan u haysano dad badan u haystaan oo faanfaan iyo ha lagaa sheego iyo ha la sheego iyo heble iyo hebel waxaasay dhigteen iyo kana la sameeyey iyo yani xataa dadka qaarkood yani caqli xumadooda waxay gelayaan daymo aan caadi ahayn daymo aan caadi ahayn oo wax kalifay uusan jirin wax duruuf oo kalifaysana ayna jirin waxay ku bixinayn haddana macno la-aan australia maalin aan tegey baa waxaa la ii sheegahayay intaan joogay baa aroos dhacay waa magaalada melbourne waxaa laigu yidhi 2 wiig ka hor baa mid soomaaliya aroostay wax badan ma haysanine lacago fara badan buu dayn ku qaatay lacagihii wuxuu ku kharash gareeyey arooskii xataa waxaa laigu yidhi ilaa 40 mise 30 kun oo dollar baa wuxuu ka bixiyey diyaarad helicoptero inta lagu qaado magaalada korkeeda lagu soo wareejinayo ninkan nin adeer u ahaa oo ii waramayey baa wuxuu ii sheegay arooskoodu markuu dhammaatay wiig arooskii intaasoo qarasha lagu galay wiig markay wada joogeen way kala tageen buuri asagii waxoogaagii markay ka kala intuu burburiyey banaanka ku soo dhacay baa hooyadii iyo aabihii baa la soo hadlay markaasa waxay yidhahdeen hooyo meeshaasaan joognaa waxoogaa baan u baahnaa wax noo soo tuur kii adeerkii haabuu u yimid oo wuxuu yidhi adeer hadde waxa wey hooyihii aabba halkaa joogay bal $1 idaymi $1 idaymi waa ninkii shalayto taqriiban 60 kun oo dollar baa bi'ii waay maantana hooyadii iyo aabihiiba wuxuu u leeyahay $1 buu u leeyahay caqli xumo ka weyn adigii bal weligaa miyaad aragtay waa nooc safaha ah way safiihnimo waay waxaa la doonayaa marka wax weyn maaha muhiimaddu waxa weeyaan labada ruux inay is arkaan isku dhowrsadaan caruur kale helaan laakiin gogosha la dhigaya inay saas tahay macno weyn kuma fadhido meherka la bixinayo inuu saas yahay macno weyn kuma fadhiyo magacan iyo hala sheego macno weyn kuma fadhido muhiimadda laga aadaa muhiimaddu maxay tahay muhiimaddu waxa weeyaan gabadhuna inay ku dhowrsato wiilkuna gabadha ku dhowrsado intaa in yani waxa weeye xoogga la saara loo baahay wixii kaleeto oo dhanna la fududeeyo heer waxay gaadhi khaliijkoo kale hadda markaad tagto khaliijka sacuudigaan joogi jirnay sacuudiga gabdhihii iyo wiilashu waa isu baahan yihiin waa dad koray guur bay u baahan yihiin haddana maca daalika gabadhii halkaasi ku guumaysoobaysaa wiilkiina banaankaasuu taagtaagan yahay oo waa wareegeysanaya 4 sac kolba telefoon buu diraya